Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalahayga ku xidhan kanaalkooyga bulshada kusoo dhawaada mowduuceena maanta. Haddii aad kanaalka ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar, mowduucana sii sheer gare oo saaxiibadaada kale la sii wadaag. Dhaqanka wanaagsan waa mid kugu haga wadada saxda ah oo markaas Allah raalli ka yahay. Waxaan maanta idinla wadaagaynaa qiso jacayl oo markaas ku saabsanayd diinteena suuban. Dumarka si guud qisadani way u taabanaysaa, waxaanse kula dardaarmi lahaa sida gabadhaas oo kale inay raggiina ku xulataan diin iyo sidoo kale dhaqan wanaagsan. Waxaan xasuustaa maalin gabadh aan su'aal weydiiyey, su'aashuna waxay ahayd inaad ninkaaga guursato maxaad ku xulan lahayd? Ku jawaabtay su'aal iska basiida iyo su'aal kale oo ku dhex jirta, waa inuu ahaadaa ninku nin sigis baag leh iyo sidoo kale qurux. Balse markay saasi tidhi aad ayaan uga naxay, balse wayba ku saxsan tahay quruxda diinta ayaaba quruxda tilmaamaysa oo inuu ninka iyo dumarkuba ay qurux badnaadaane. Arrinta sigis baaga ayaan aad uga fajacay. Miyaynan mudnayn in ragga lagu guursado dhaqankiisa wanaagsan iyo sidoo kale diintiisa sharafta leh? Sida gabadha ayaa waxay ku bilaabatay wiil iyo gabadh ayaa aad maalin isu jeclaaday. Gabadha ayuu weelku yimi, waxauna ku yidhi aan ku guursada. Waxay ku tiri haye i tus lugtaada. Wuxuu ku yidhi aan ku guursado. Intii soo egtay ayay ku tiri haddii aan hal shay kaa helo oo kugu saabsan xitaa meher kugu xidhi maayo ee waalidkay iga doono waayahay ayaan ku yidhi. Waxay ku tiri i tus lugtaada bidix. Intaan fadhiistay ayaa waxaan ka furay kabtii aan xidhnaa. Kadib waxay eegtay quraanta halka la dhigo marka la taxiyaadsanayo salaada. Kadib ayay aragtay quraantayda oo madow ah. Ruuxa salaadiisu saxda tahay badanaa halkaasi waa madow. Waxay tiri guurkaaga raalli ayaan ka hay ee waalidkay iga doono. Cajiib. Waxaan ku yidhi guurka iyo lugtayda maxaa isku xidhay? Waxay tiri waxaan hubsanayay inaad Allah xiriir wanaagsan la leedahay, waayo naftayda kuma aamini karo ruuxan Allaahi abuurtayba xiriir wanaagsan la lahayn. Adiguse waxaad ii leegtahay ruux Allah ku xidhan, kadib sidaas ayaan ku gurigalaynaa. Ujeedka mowduuca inaad ruux hantidiisa ama quruxdiisa ku jeclaato miyaynan ka habboonayn inaad diintiisa iyo xiriirka uu Allah la leeyahay ku jeclaato? Way jirtaa dad badan oo guurkooda ku xidha qurux iyo sidoo kale hanti, balse iyadoo taasna loo baahan yahay inaad qofka aad ku qiimayso xiriirka uu Allah la leeyahay waa wax aad u wanaagsan. Balse waxaan mowduuceena kusoo gabagabeynaynaa qof Allah ku xidhan adna kuma xumayn doono. Haddaad tahay wiil iyo gabar, war dumarow raggiina ku xusho diin, war idinkuna ragow dumarkiina ku xusho diin iyo sidoo kale dhaqan wanaagsan. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mowduuceeni maanta. Intaan ku kulmi doono mowduuca la mid ah, walaalayaal mowduuca sii sheer gareeya fadlan idinkoo mahadsan. Saaxiibadaada kalena la sii wadaag. Hadaadan mowduuca subscribe noo saarina noo saar. Saaxiibayaal AV amaanillaah.